محمود سودو كلمة هذا maalin weyn oo taariikhi ah waaye aad iyo aad ayaan marka hore idinkaga mahad celinayaa qadarinta iyo qiimaha weyn aad isiiseen iyo mas'uuliyadda ballaaran oo mar kale aad saarteen ilaahay idankiis anigana muxuu ahaay ilaahay waxaan ka baryaa kii mas'uuliyaddaas ka soo baxeen ilaahay iga dhigo adinkana waxaan idinka codsanayaa maanta meesha aad mas'uuliyadda iigu dhiibteen inaadan iiga harina dhaqangalkeeda iyo guulaysigeeda iyo meelmarinteeda inaad muxuu ahaay igala shaqaysaan haddii alla yidhaa intiinaan iyo inta kale faraha badan ee maanta fursaddan aan imaanin oo aad fariintaas ayagana iga gaarsiin doontaan sida uu xildhibaan fiqi tilmaamay hawsha maanta aan qabannay waa kumeelgaar kulan weynihii xisbiga ee ugu horreeyey waa noo dhiman yahay waxa mas'uuliyadda la isu saaray ee maanta loo yimiday ee dastuurkana muxuu ahay si kumeel gaara loogu ansixiyey waxa waaye in hawshaas loo diyaar garoobo oo mas'uuliyad lagu qabto hawshaas marka waxaan ka shaqayn doonaa sidii shirweynihii guud ee xisbiga oo heer qaran ah oo dalka iyo dibadiisa dhan looga wada yimiday oo dad maxaan ku yiraahdaa xisbigii iska leh oo yaqaano muxuu ahay doorka ay leeyihiin in meesha ay ugaga jiraan ay isku yimaadaan oo shirkaas si kama dambaysta dastuurkana loogu ansixiyo si kama dambaysta ana mas'uuliyiinta loogu doorto haddii alla yiraahdo waxaan rabnaa xisbigan dowlad dhisidda Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliya mar walba hor u socod waay xisbigan waxaan rabnaa xisbi oo yacni horay u socon oo wixii jiray wax ku sii kordhinayo wax ku dul dhisayo hagaajinayo inuu noqdo dimuqraadiyadan rabnaa dalku inuu xukun wanaagsan oo si dimuqraadi ah oo wadajir ah oo raali laga wada yahay dalka inuu ka jiraan rabnaa si aan taas u gaarno marka xisbigeenna waa inaan ka dhex muujinnaa dimuqraadiyadda iyo muxuu ahay kalsoonida iyo madax bannaanida ra'yiga iyo dhammaan dimuqraadiyaddana waxa waa maaraynta masaalixda kala duwan iyo fikradaha kala duwan ee dadku ay qabaan inaan lagu kala tegin ee la maareeyo ee la isku yimaado ee la isku hayo dad mas'uuliyiin ah oo tanasul badan isu dul is ixtiraama wax isu quura adduunyadoodu maanta kaliya aanay ku kayn ee berri dambe ee beriga ka sii dambeeya muxuu ahaay u hawl qabta ayaan noqonaynaa haddii alla yiraahdo xisbigaana aasaas wuxuu u taagan yahay waa intaas waxaan rabnaa maanta waxaan ka bilownay meel bannaan xisbi cusub aan jirsiinay hay-ad cusub oo qaanuuni ah oo dastuuri ah oo dalka ka jirtaan maanta jirsiinay aan bilownay waxaan rabnaa in maalin maalmaha ka mid ah inteennaan aan gaarno oo aanan muxuu ahaay mas'uuliyadda hadda sida aan u hayno aanan u hayn oo dad kale oo dhallinyaro ah oo cusub ay mas'uuliyaddii hayaan maanta sida uu yaryahay xisbiga uu ka weynaaday oo dad aad iyo aad u fara badan oo Soomaaliyeed ay ku wada jiraan talada dalkana oo door uu ku leeyahay muhiim ma aha mar walba in aan muxuu ahaay annaga aan istusino inaan hoggaanka dalka mar walba aan ahano laakiin waxaa muhiim ah talada dalka mar walba inaan ku jirno door ku leenahay tala ku leenahay waxa jira waxa wanaagsan aan u nahay waxa liita ama laga roon yahayna inaan celi karno dhigi karno waxaan dalka maslaxad ugu jiro waxa muhiimka saas waay dad tashaday inaan noqono isku aragti ah isku ra'yi ah aasaaska ama gundhiga ra'yigooda iyo taladooduna ay tahay dalka Soomaaliya aasaaska iyo gundhiga taladooduna ay tahay Soomaaliya mid ah Soomaaliya dimuqraadi ah Soomaaliya dawladnimo wanaagsan ee ka ansaxday dad badan ayaa naga maqan intaan iyo in u dhow midna maahin oo ama dalka ku fiirsan oo ku kala maqan ama dibadda ku maqan oo aan maanta fursaddan aan u xoogelin waa waxa aan rabno inaan ka shaqeyno bilaha soo socda si aan dadkaas walaalaha ah oo dhan aan isugu keenno maalin maalmaha ka mid ah xamar magaala madaxda Soomaaliya oo xisbigana xaruntiisa magaala madaxda laakiin macnaheedu xisbigan inuu yahay xisbi madax ka nool ah oo xamar leh ka jiro inuu yahay ma xisbigan waxa rabnaa jamhuuriyadda oo dhan deegaan kasta iyo meel kasta jamhuuriyadda ka mid ah
dad xisbigan ka tirsan oo ku abtirsada oo aaminsan mabaadidiisa inay joogaanaan rabnaa waxaan u taaganaa ka wada shaqaynayna waa intaas mar kale waa idiin mahad celinaa aad iyo aad waxaanan idinka codsanaa in howl aad iyo aad u adag mas-uuliyadda maanta aan qaadnay howl aad iyo aad u adag waa ammaano waaye ammaanadaasi in aan u istaagno howl aan howl loo dayin ma qabsoonto inaan marmarka qaarkood howlo kale oo aan leenahay oo ama howlo siyaasadeed ah ama howlo masaalix dhaqaale ah ama howlo masaalix family ama beelad ama safarada qaarkood intaan ka gaabsanno hawsha xisbiga awgeed aan u soo istaagno habeen iyo maalin aan u taagnaana nalaga rabaa oo keenii cudurdaar lana cudurdaar intaan siino intayna kale shaqada aan qabanno dadka Soomaaliyeed maanta iyo maalinta Khamiista ee soo socota marka ay maqlaan rajo expectation rajo wax la yiraahdo dadku ku abuurmay rajadaas inaanan ka gaabina meeshii loo filayay dadka soo baxay inaan noqon oo rajada dadka rajaan abuuraynaa rajadaas aan abuurnay in aan ka soo baxno oo aan waxqabadkeedii la nimaadaan laga rabaa laakiin aanan noqonin bootin libaaxle kuftin sagaarre inaanan noqonin laga rabaa dadka meeshaan fadhiyo iyo in badan oo kale oo ka tirsan saaxiibadood iyo muxuu ku ra'yiga oo maanta aan nala joogin waa hubaa in ay wax yani si rasmi ah isbedel muuqda oo siyaasadeed iyo dhaqan cusub oo siyaasadeed dad abuuri karo curin karo dhalin kara ayaa meeshaan maanta fadhiya ka irkeena iyo iska warqabkeena iyo dadaalkeena wada jirka aad iyo aad u muhiim mar kale waa idin mahad celinaa hawli waa noo dhiman tahay albaabkii aan maanta ka soo galnay gurigii dhexdiisa la dhisaayo wali waa noo dhiman yahay hawshaas aan u diyaar garowno dhafar badan iyo soo jeed badan oo aan xoog iyo xoolo isla socda ah xisbigani ma rabno inuu noqdo man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu qofkaan quudkiisa kari karin qaraarkiisa ma laha qofkii quudkiisa yaa qaraarka u leh inaan noqono ma rabno xisbiga annaga iskale fikir annaga aan leenahay inuu xambaaraan rabnaa marka xoog oo aan ku meel marino waa sida kaliya ee wax macna lahoon raalli ka nahay annaga haddii kale qofkii wax ku siyaahay ajanda uu leeyahay iyo fikir uu leeyahay iyo mid uu diidan yahay oo adigu aad lahayd oo aad rabto kaa qabsado kaa reebo ama mid aadan qaadi lahayn shalaba aad ka soo tagtay oo yiraahdo maya kan anaa watay iigu dar meesha ka fursan maysid haddaad xoolo islaameed aad ku haminaysid weliba xoolo ajnabi uu leeyahay haddaad ku haminaysid ha ku haminina waa karnaa awooddeedaan leenahay waa haysanaa laba siyaabood mar waaye waxaan haysan inaan bixino marka kale waaye ee meeshii xoolo u baahnaa lahayd xooggeena iyo dadaalkeena iyo juhdigeena inaan ku badbaadino haddaan qof khabiir ah raadin lahayn oo lacag sii lahayn dad khubaraha xisbiga ku jooga dadkaas inuu isu istaagaan annagaa qabanayno howlaha xisbigeena ay dhahaan oo aanan u baahanin inaan qof khabiir aan soo kirayno haddii maxaan ku idhahdaa la qabanaayo hawshaan la qabanaayo yaa qabanaayo inteenan hawsha qabanaysaa bixinayno bishii qaaraankii waa kanaa sanadkii qaaraankii la iska rabo waa kanaa dadka hebel iyo hebel iyo hebel anaa aqaanay meel hebel anaa degaan hebel anaa dadka tagayo oo kusoo dhiirigelinayo oo tusayo muxuu ahay waxaana laga rabaa inaan xooggeena iyo xoolaheenna isu geyno sidaas oo keliya ayaa ra'yigeenna iyo taladeenna ay ku meel mareen haddii kale ra'yigeenna taladeenna ma meel mareyneen waxaan noqonaynaa dad xambaarsan ra'yi iyo tala dad ay leeyihiin dad xambaarsan oo wadanahay waana lagu fashilaa laguma guulaysta meel laguma gaarayo karaamo laguma helaayo annaguna waxaan u taaganahay karaamada dalkan iyo dadkan iyo diintooda in ay soo noqotaan rabnaa oo ay meel cad soo istaagto oo Soomaaliya waa dhaqaaqday la yiraahdo oo laga hor imaan karin aad iyo aad ayaan mar kale idinku mahad celinaa insha Allah marar badan aan kulmi doonaa ka wada hadli doonaa qadiyado badan qofkii maalin la isqabto la isku qayliyo macnaheedu in la kala tagay ma aha afkaarta waa isku qabanaynaa waa ku doodaynaa waa muxuu ahay ku dagaalamaynaa dhexdeena laakiin haddana meeshii loo bataan raacayna dadka intaa dooday ee meeshii joogta u bataan raacayna waa laga yaabaa ra'yigaaga laga tagay inuu kii saxda ahay waa laga yaabaa laakiin waxa muhiimka waxa waaye ra'yigii saxda ah in la qaado waayo dadkuna ay isdiriraan oo iskhilaafaan mushkiladda laga cararaayo dadka inta badan meesha ay jiraan hal aado la leeyahay waa sidaas laakiin garawshiyaad helay ixtiraam gaar ah helay ra'yigii shalay uu noo keenay hebel ama heblaaye ay noo keentay aan diidnay kii saxa ahaayo ahay maalintaas wixii ka dambeeyay in aad laakiin haddaad maalinta dadka ka carabto tiraan ra'yiga dil diiday meesha maxaa ka jeedaa
waxa waaye dhibaato meesha ka timid waaye mar kale aad iyo aad u mahadsantihiin waa joognaa waa shaqaynaynaa waxaan rabaa oon idinkaga mahad celinayaa mas-uuliyadda aad ii dhiibteen iyo ixtiraamkii qadaridda waxaanan idinka codsanayaa culayskeeda in la ila qaado oo la ila shaqeeyo si guulkama dambaysaan u gaaro aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum muxuu ahaayey ilaahay waxaan ka baryayaa kii mas-uuliyaddaas ka soo baxayn ilaah iga dhigo adinkana waxaan idinka codsanayaa maanta meesha aad mas-uuliyadda iigu dhiibteen inaadan iiga harina dhaqangalkeeda iyo guulaysigeeda iyo meelmarinteeda inaad muxuu ahaay igala shaqaysaan haddii alla yidhaah intiinaan iyo inta kale faraha badanna ee maanta fursaddan aan imaanin oo aad fariintaas ayagana iga gaarsiin doontaan sida uu xildhibaan fiqi tilmaamay hawsha maanta aan qabannay waa kumeelgaar kulan weynihii xisbiga ee ugu horreeyey waa noo dhiman yahay waxaa mas-uuliyadda laysu saaray ee maanta loo yimiday ee dastuurkana muxuu ahay si kumeelgaara loogu ansixiyey waxa waaye in hawshaas loo diyaargaroobo oo mas-uuliyad lagu qabto hawshaas marka waxaan ka shaqayn doonnaa sidii shirweynihii guud ee xisbiga oo heer qaran ah oo dalka iyo debadiisoo dhan looga wada yimiday oo dad maxaanku idhahdaa xisbigii iska leh oo yaqaano muxuu ahay doorka ay leeyihiin meesha ay ugaga jiraan ay isku yimaadaan oo shirkaas si kama dambaysta dastuurkana loogu ansixiyo si kama dambaysta ana mas-uuliyiinta loogu doorto haddii alla yidhaahdo waxaan rabnaa xisbigan dowlad dhisidda soomaaliya iyo siyaasadda soomaaliya mar walba horu socod waaye xisbigan waxaan rabnaa xisbi oo yacni horay u socon oo wixii jiray wax ku sii kordhinayo wax ku duldhisayo hagaajinayo inuu noqdo dimuqraadiyadaan rabnaa dalku inuu xukun wanaagsan oo si dimuqraadi ah oo wadajir ah oo raalli laga wada yahay dalka inuu ka jiraan rabnaa si aan taas u gaarno marka xisbigeenna waa inaan ka dhex muujinnaa dimuqraadiyadda iyo muxuu ahay kalsoonida iyo madax bannaanida ra'yiga iyo dhammaan dimuqraadiyaddana waxa waa maaraynta masaarixda kala duwan iyo fikradaha kala duwan ee dadku ay qabaan inaan lagu kala tegin ee la maareeyo ee laysku yimaado ee laysku hayo dad mas-uuliyiin ah oo tanasul badan isu dulqaata is-ixtiraama wax isu quura adduunyadoodu maanta keliya aanay ku ekayn ee berri iyo berri dambe ee beriga ka sii dambeeya muxuu ahaay u howl qabta ayaan noqonaynaa haddii alla yidhaahdo xisbigaanna aasaaska wuxuu u taagan yahay waa intaas waxaan rabnaa maanta waxaan ka bilownay meel bannaan xisbi cusub aan jirsiinay hay-ad cusub oo qaanuuni ah oo dastuuri ah oo dalka ka jirtaan maanta jirsiinay aan bilownay waxaan rabnaa in maalin maalmaha ka mid ah inteennaan aan gaarno oo aanan muxuu ahaay mas-uuliyadda hadda sida aan u hayno aanan u hayn oo dad kale oo dhallinyaro ah oo cusub ay mas-uuliyaddii hayaan maanta sida uu yaryahay xisbigu ka weynaaday oo dad aad iyo aad u fara badanoo soomaaliyeed ay ku wada jiraan talada dalkana oo door uu ku leeyahay muhiim ma aha mar walba in aan muxuu ahaay annaga aan istusino inaan hoggaanka dalka mar walba aan ahano laakiin waxaa muhiim ah talada dalka mar walba inaan ku jirno door ku leenahay tala ku leenahay waxa jira waxa wanaagsan aan u nahay waxa liita ama laga roon yahayna inaan celi karno dhigi karno waxaan dalka maslaxad uguma jiro waxa muhiimka saas waay dad tashaday inaan noqonno isku aragti ah isku ra'yi ah aasaaska ama gundhiga ra'yigooda iyo taladooduna ay tahay aasaaska iyo gundhiga taladooduna ay tahay soomaaliya mid ah soomaaliya dimuqraadi ah soomaaliya dowladnimo wanaagsan ee ka ansaxday dad badan ayaa naga maqan intaan iyo in u dhow midna maahin oo ama dalka ku firirsan oo ku kala maqan ama dibadda ku maqan oo aan maanta fursaddan aan u xoogelin waa waxa aan rabno inaan ka shaqayno bilaha soo socda si aan dadkaas walaalaha ah oo dhan aan isugu keenno maalin maalmaha ka mid ah xamar magaalo madaxda Soomaaliya oo xisbigana xaruntiisa magaalo madaxda laakiin macnaheedu xisbigana inuu yahay xisbi madax ka nool ah oo xamar leh ka jiro inuu yahay ma xisbigan waxa rabnaa jamhuuriyadda oo dhan deegaan kasta iyo meel kastoo jamhuuriyadda ka mid ah dad xisbigan ka tirsan oo ku abtirsada oo aaminsan mabaadidiisa inay joogaanaan rabnaa waxaan u taaganaa ka wada shaqaynayna waa intaas mar kale waa idin mahad celinaa aad iyo aad waxaan idinka codsanaa in hawl aad iyo aad u adag mas'uuliyadda maanta aan qaadnay hawl aad iyo aad u adag waa ammaano waaye
ammaanadaasi in aan u istaagno aan howl loo deeyin ma qabsoonto inaan marka qaarkood howlo kale oo aan leenahay oo ama howlo siyaasadeed ah ama howlo masaalix dhaqaale ah ama howlo masaalix family ama beelad ama safarada qaarkood intaan ka gaabsano hawsha xisbiga awgeed aan u soo istaagno habeen iyo maalin aan u taagnaana laga rabaa oo keeni cudurdaar lana cudurdaar intaan siino intayna kale shaqada aan qabanno dadka Soomaaliyeed maanta iyo maalinta Khamiista ee soo socota marka ay maqlaan rajo expectation rajo wax la yiraahdo dadku ku abuurmay rajadaas inaanan ka gaabina meeshii loo filayay dadka soo baxay inaan noqono oo rajada dadka rajaan abuurayna rajadaas aan abuurnay in aan ka soo baxno oo aan wax qabadkeedii la nimaadana laga rabaa laakiin aanan noqonin bootin libaaxle kuftin sagaare inaanan noqonana laga rabaa dadka meeshaan fadhiyo iyo in badan oo kale oo ka tirsan saaxiibadood iyo maxay ku ra'yiga oo maanta aan la joogin waa hubaa in ay wax yaani si rasmi ah isbedel muuqda oo siyaasadeed iyo dhaqan cusub oo siyaasadeed dad abuuri karo curin karo dhalin kara ayaa meeshaan maanta fadhiya ka irkeena iyo iska warqabkeena iyo dadaalkeena wada jirka aad iyo aad u muhiim mar kale waa idin mahad celinaa hawli waa noo dhiman tahay albaabkii aan maanta ka soo galnay gurigii dhexdiisa la dhisaayo wali waa noo dhiman yahay hawshaas aan u diyaar garowno dhafar badan iyo soo jeed badan oo aan xoog iyo xoolo isla socda ah xisbigani ma rabno inuu noqdo man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraaruhu qofkaan quudkiisa kari karin qaraarkiisa ma laha qofkii quudkiisa yaa qaraarka u leh inaan noqono ma rabno xisbiga annaga iskale fikir annaga aan leenahay inuu xambaaraan rabnaa marka xoog oo aan ku meel marino waa sida kaliya ee wax macna lahoon raalli ka nahay annaga haddii kale qofkii wax ku siiyaahay ajanda uu leeyahay iyo fikir uu leeyahay mid uu diidan yahay oo adigu aad lahayd oo aad rabto kaa qabsado kaa reebo ama mid aadan qaadi lahayn shalaba aad ka soo tagtay oo yiraahdo kan anaa watay iigu dar meesha ka fursan maysid haddaad xoolo islaameed aad ku haminaysid waliba xoolo ajnabi uu leeyahay haddaad ku haminaysid ha ku haminina waa karnaa awoodeedaan leenahay waa haysanaa laba siyaabo mar waaye waxaan haysan inaan bixino marka kale waaye ee meeshii xoolo u baahnaa lahayd xooggeena iyo dadaalkeena iyo juhdigeena inaan ku badbaadino haddaan qof khabiir ah raadin lahayn oo lacag sii lahayn dad khubaraha xisbiga ku jooga dadkaas inuu isu istaagaan annagaa qabanayno howlaha xisbigeena ay dhahaan oo aanan u baahanin inaan qof khabiir aan soo kirayno haddii maxaan ku idhahday la qabanaayo hawshaan la qabanaayo yaa qabanaayo inteenan hawsha qabanaysaa bixinayno bishii qaaraankii waa kanaa sanadkii qaaraankii la iska rabo waa kanaa dadka hebel iyo hebel iyo hebel anaa aqaanay meel hebel anaa degaan hebel anaa dadka tagayo oo kusoo dhiirigelinayo oo tusayo muxuu ahay waxaana laga rabaa inaan xooggeena iyo xoolaheena isu geyno sidaas oo keliya ayaa ra'yigeena iyo taladeena ay ku meel mareen haddii kale ra'yigeena taladeena ma meel mareyneen waxaan noqonaynaa dad xambaarsan ra'yi iyo tala dadka ay leeyihiin dad xambaarsan oo wadanahay waana lagu fashilaa laguma guulaysto annaguna waxaan u taaganahay karaamada dalkan iyo dadkan iyo diintooda in ay soo noqotaan rabnaa oo ay meel cad soo istaagto oo Soomaaliya waa dhaqaaqday la yiraahdo oo laga hor iman karo aad iyo aad ayaan mar kale idinku mahad celinaa insha Allah marar badan aan kulmi doonaa ka wada hadli doonaa qadiyado badan qofkii maalin la isqabto la isku qayli macnaheedu in la kala tagay ma afkaarta waa isku qabanaynaa waa ku doodaynaa waa muxuu ahay ku dagaalamaynaa dhexdeena laakiin haddana meeshii loo bataan raacayna dadka inta dooday ee meeshii joogta u bataan raacayna waa laga yaabaa ra'yigaaga laga tagay inuu kii saxda ahay waa laga yaabaa laakiin waxa muhiimka waxa waaye ra'yigii saxda ah in la qaado waayo dadkuna ay isdiriraan oo iskhilaafaan mushkiladda laga cararaayo dadka inta badan meesha ay jiraan hal aado la leeyahay waa sidaas laakiin garawshiyaad helay ixtiraam gaaraad helay ra'yigii shalay uu noo keenay hebel ama heblaaye ay noo keentay aan diidnay kii saxa ahaayoo ahay maalintaas wixii ka dambeeyay in aad laakiin haddaad maalinta dadka ka carabto tira aniga ra'yigayga dil diiday meesha maxaa ka jeedaatee waxa waaye dhibaato meesha ka timid waaye mar kale aad iyo aad u mahadsantihiin waa joognaa waa shaqaynaynaa waxaan rabaa oon idinkaga mahad celinayaa mas-uuliyadda aad ii dhiibteen iyo ixtiraamkii qadaridda waxaanan idinka codsanayaa culayskeeda in la ila qaado oo la ila shaqeeyo si guulka ma dambaysaan u gaaro aad iyo aad u mahadsantihiin